السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتا قيمها يقايها مدن كسو دوادا عشر كيني كمبيوتر بيسيك maanta waxaanu isla eegi doonaa haduu rab raali ka noqdo monitorka iyo inta qaybood ay ka kooban tahay iyo sidoo kale waxaanu wax weeyaan isla arki doonaa hadii kombiyuutar aad gadanaysid quality leh see u gadanaysaa mid quality leh ama see wax weeyaan iskaga ilaalinaysaa kuwa ay wax weeyaan la isku hoos geliyo yaani versionadoodu aad ka eberka u yihiin raamkoodu aad ka u yar yahay CPU-dooduna aad ka wax weeyaan daciifka u tahay marka ku soo dhawaada barnaamijkeena iyo Waxay intaan qodobkaas muhiimka u galin marka hore waxaan rabnaa inaan isla ogaano ama isla eegno waxa la yiraahdo screen ama monitor shashada hadda inoo muuqata ee uu saaran tahay loogadii Waxay iyo background-ka color picture-ka waxaan rabnaa dhaladan maxay ka kooban tahay waxay ka kooban tahay wax la yiraahdo icons oo ah kuwan aynu hadda highlight ka saarayno oo halka inoo saaran oo waxa weeye uu kamid yahay PCB-gi network-gi browser-ki kuwaas oo dhan waxay wada noqonayaan haduu ahaado picture haduu ahaado video iyo haduu application ahaado waxay noqonayaan icons halkan hoose baa inoo saartay oo waxa weeyaan bahalkan aad sida u dheer waxa la yiraahdaa desk-bar-ku wuxuu qabtaa holding baa la yiraahdo wuxuu qabtaa markaad ku shaqaysanaysid application-nada hadda wuxuu hayaa bahashan la yiraahdo Photoshop-ki Premiere Pro-ki sidoo kale Camtasia-di isagoo recording-ka waa kuwan wax ku duubayo marka desk-bar-kaas isaga laftirkiisa waxa loo kala qaadaa saddex kan horta waa menu-gi waxa weeye waa Windows menu ama Windows-ka ayaa wata waa menu-ga iyo intaas dhexe oo ku haynaysa application-nada marka isticmaalaysa oo la yiraahdo middle iyo intan geeska oo la yiraahdo navigation-ku inta badan isagu wuxuu ku haynayaa keyboard-ka automatically ah sound-gi waxa la yiraahdo wifi-gi battery-gi iyo intaad allaale iyo intaad ku soo darsatid oo wixiyaalaha necessary-ga ama wax weeyaan aad mar kasta u baahan tahay weeyaan sidoo kale wuxuu ku haynayaa date saacadii iyo wax weeyaan date-ki calendar-ki yani halkan waxa weeyaan iyada laftirkeedu waa meeshii waxa weeyaan aad wax ka bedeli karlayd waxa ku jira waxyaabo aad u kala duwan marka monitorkaas intaas ay ka kooban tahay kan waxa la yiraahdaa waa icons iyada oo dhan waxa la isku oranayaa monitor iyada oo dhan waxa la isku oranayaa monitor ayaa la isku oranayaa iyadoo dhan monitor marka la isku dhaho intan hoose ku soo hadhayna waxa la yiraahdaa desk-bar-ka loo kala qaadayaa menu oo ah inta yar halka aan taabanayno iyo intan dhexe oo application-nada ku haynayso la yiraahdo middle iyo intan geeska oo la yiraahdo navigation hadaba waxaanu isla eegaynaa sidee kombiyuutarkayga marka aan soo gadanayo iskaga checkima inuu yahay kombiyuutar quality-giisu aad u sareeyo hadda kombiyuutarkayga waa kombiyuutar iska wanaagsan waxa weeyaan raamkiisu waa iska fiican yahay CPU-giisu waa iska fiican tahay system bitkiisu waa fiican yahay marka koowaad waxa tagaysaa waxa la yiraahdo PCB haduu halka ku saaran yahay right click ayaad ku dhufanaysaa properties ay tagaysaa properties marka tagtid kana ku soo boodaya hadii kale daabanaysa Windows plus S waxaad ku qoraysaa marka system waa kan system oo kaas markaas saas kugu saaray marka halkan ayaad waxa weeyaan ka fiirinaysaa waxa weey Windows-ka kugu jira process-kaaga waxa soo dhan horta Windows-ka inuu jira waa Windows 10 wax la yiraahdaa waa home 2016 marka waa kan system-kaas intaas laga rabaa inaad si wanaagsan u fiirisid marka laptop gashanaysid waa system-kaas
halka system ku qorantay halkan waxa ku qoran process waxa la yiraahdo waa CPU micnaheedu waxa weeyaan waa xawaaraha ama speedka uu laptopkaagu goynayo marka aad wax ku isticmaalisid hadoo kale marka aad meel click siisid inta xawaaro uu ku soconayo inuu seconds ku socdo baa laga rabaa halka aniga waxa weeyaan waa core i3 waxa jira core i3 core i5 core i7 iyo wixii ka sareeya waxa la jira mid la yiraahdo dual core iyo CPU oo iyaduna waxa weeyaan aad u yar oo ah 1.0 wax aad lagu aad aan laba qiyaas karayn marka waxa la yiraahdaa ta ugu hooseysa waxa la yiraahdaa dual core marka ta ugu wanaagsan waxa la yiraahdaa core i3 may kuwa ugu wanaagsan bay kamid tahay core i3 gaygan hadda waxa weeyaan waa iska 3 CPU oo dusha iska saaran laakiin core i5 core i7 ayaa ugu wanaagsan siiba core i7 halkan waxa kugu jira waxa la yiraahdaa memory halkan waxa kugu xiga memory oo la yiraahdo ramkigu waa 4GB weeyaan laakiin si raamamka kombiyuutarada aadka u quality-goodu wanaagsan yahay kombiyuutarkaygan waa fiican yahay meel walba waa loo isticmaali karaa xog badan waa ku kaydsan kartaa waa okay weeyaan laakiin si kombiyuutarada hadii aad rabtid kombiyuutar wax badan ku qaada ama xog badan ku qaada xog badan aad ku habeystid programmo waaweyn aad ku shubatid waxa halkaad raamka weyn ama 8GB ahada ama 16GB marka raamka waa wax la gashto isagu wax weyn aad u weyn maaha raamka haduu ka yara laakiin raam waxa jira 2GB laakiin markaad kombiyuutarka gadanaysid yaan lagu xalin waxa la sheegaa shirkadaha ama waxa weey raga kombiyuutarada qaar inay ku faaniyaan kombiyuutarkan kadibna hadhow intay dushiisa ku soo dajiyaan waxa weeyaan adigu iska waraaq yar hadhow ku oranayo core i7 waa core i5 raamkiisu waa 4GB marka waa inaad waxa weey tusi taabsi halkan system tabeskiisa laba system baa jira mid la yiraahdo 32 bit iyo 64 hadda waa 64 aniga waa kugu sareeyay 64 mid hadda ka sareeyay ma soo bixin wali marka 64 bit iyo 32 bit marka 64 bit iyo 32 bit micnaheedu waxa weeyaan programmo ayaa wax ku shaqeynayaan 32 aan ku shaqeynayn 36 marka qaarka kombiyuutarada ugu dambeeyay hadda oo kaygu kamid yahay waxa isku jira 36 iyo 32 iyo 64 bits marka kana waa inaad iska fiirsaa halkan pen and touch book leeyahay pen and touch waxa weeyaan kombiyuutarkaaga in qalin lagu wadayo iyo in gacanta laga taabinayo laba aniga kaygu ma ahan hadda available disk available baa la helayaa oo ah output iyo input lagu sameeyo iyo inaan mouse kasto iyo inaan ka laptopka iyo dushiisa ka wado laakiin se waxa jira isagoo pen qalin lagu wadayo iyo isagoo la taabanayaba marka waxa laga baahan yahay in laptopka marka aad soo gadanaysid aad intaas iska fiirsid systemkaas waxa weeye processka oo CPU ah waa inuu ugu badnaan noqotaa ugu yaraan waa inay noqotaa core i3 ugu badnaanna core inta rabtid inta qiimaha ku gooyo intaas uu la sheego core i7 core i5 inay kombiyuutarada aad u qaali yihiin $500 iyo wixii ka badan raamiskan laftirkiisa waa inaad 8GB aad iska hubisaa sidoo kale meel kale ayaan ku tusayaa oo ah meeshii storage-ka dhameyd hadana PCB-ga aad ku dhufanaysaa halkan kuwan local diskiyadana waa inaad iska fiirisaa hadda kuway waxa weeyaan waa iska 500 halkan waxay ku jirtaa 240 45 ku dar waa 300 iyo konton ha kan may wallahi 300 ka yar adigu ugu badnaan waa 250 baa leeyahay ugu badnaan 250 iyo 250 imisku noqonayaan ugu badnaan waa inuu 500 ku ahaada hadduu 500 ku hooseeyo local diskigagaasi wax weyn ku anfici maayo wax xog badan ku qaadi maayo marka kombiyuutarkaaga waa inaad marka koowaad sidaas aad wax weeyaan iskaga checkinta marka kadib ama gado ama ha gadan laakiin se muhiimad wax weeyaan waa in kombiyuutar quality leh oo mustaqbalkaaga wax weeyaan baahiyaha u baahan tahay dhameystiri kara marka intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh